السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرين جنالك مركز السود واضح أدي هذا ومهتسنتي وقالكن waxaan rabaa inaan idin kula wadaago shaqada dawladda Mareykanka oo maanta dib loo furay kadib markii xirneed 43 maalmood kadib markii xalay sharcigii miisaaniyadda dawladdu ay ku sii shaqeynaysay aqalka wakiiladu ay meel mariyeen madaxweyne Trumpna uu isla xalay qalinka ku duugay yaa dhinaca dimuqraadiyiinta u codeeyay yaa diiday dhinaca Republicaankana imisa u codeysay imisa ayaa diiday ayaan idin la wadaagaya Trump markii uu saxiixayay dimuqraadiyiinta ayaa waxa uu ku eedeeyay in mas'uul ka ahaayeen xirnaashaha dawladda shalay waxa la dhaariyay xildhibaanada la yiraahdo Adalita Grijalva codka kaliya oo ka dhimanaya ahayd mooshin ay 217 xubnood horey u saxiixeen si loo soo daayo Epstein files aqalka cad waxay ku dadaalayaan sidii aan loo soo bandhigi lahayn Epstein files shalay xubnaha dimuqraadiyiinta ee ku jira guddiga la xisaabtanka dawladda waxay soo bandhigeen email muujinaya in Trump uu wax ka ogaa arrinta gabdhaha uu ka ganacsan jiray Epstein waa Jeffrey Epstein iyo waliba emailadaasi oo Trump magaciisa dhowr jeer uu ka muuqanayay inuu muuqatay in rakaato ama blackmail Trump lagu haystay sidoo kale afayeenka aqalka wakiilada Mike Johnson markii xalay la ansixiyay sharcigii miisaaniyadda dawladda dib loogu furi lahaa oo ay ku shaqeyn lahayd waxa uu ka dhawaajiyay in cod loo qaadi doono in Epstein files la shaaca laga qaado shacabka loo soo bandhigayo in kale toddobaadka soo socda muxuu yahay dadaalka aqalka cad ay ku bixinayaan in qaar ka mid ah xubnaha Republicaanka ee saxiixay mooshinka lagu soo bandhigayo Epstein files inay codkooda dib ula laabtaan shalay aqalka cad xubin ka mid ah xubnaha Republicaankka ee saxiixa ayaa loogu yeeray oo kulan qaas ah qolka situation roomka lagu leeyahay xubintaasi maxay tahayna sidoo kale waan idin la wadaagaya Trump waxa uu leeyahay maadaama dawladda dib loo furay dimuqraadiyiinta hadda waxay doonayaan haddana mar kale inay dadka ku mashquuliyaan Epstein files waxa uu ka soo qoray qoraal kala duwan oo bartiisa Truth Socialka arrimahaas ayaan idin la wadaagaya shaqada dawladda Mareykanka ayaa xalay dib loo furay kadib markii ay xirneed muddo 43 maalmood waa muddadii ugu dheereyd oo shaqada dawladda Mareykanka ay xakad ku jirto waxana isniintii ay aqalka sanadku meel mariyeen miisaaniyadda dawladdu ku dhawaad 2 bil iyo bar ay ku sii shaqeynayso ilaa 30 bisha January ee koobaad ee sanadka soo socday 2026 aqalka wakiilada ayaa shalay la hordhigay waa ay ka doodeen waxayna ku ansixiyeen 222 cod 209 waa ay diideen waxa uu codeeyay 216 oo xisbiga Republicaanka iyo 6 dimuqraadiyiin halka sidoo kale 207 dimuqraadiya ay diideen iyo waliba 2 Republicaana sidaas darteed ayuu sharcigu ku meel maray xubnaha dimuqraadiyiinta ee sharcigaasi ee 6 ah ee ku raacay xisbiga Republicaanka ayaa waxa ay kala yihiin Jared Golden oo Maine laga soo doorto Adam Gray oo California laga soo doorto Marie Gulson Camberes oo Washington State laga soo doorto Don Davis oo North Carolina laga soo doorto Henry Cuellar oo Texas laga soo doorto iyo Thomas Wasi oo New York laga soo doorto halka sidoo kale labada xubnood ee Republicaanka ee diiday miisaaniyadda dawladdu ay ku sii shaqeynayso ay kala ahaayeen Thomas Massie oo Kentucky laga soo doorto iyo Greg Steube oo sidoo kalena Florida laga soo doorto markii sharciga la meel mariyay isla markiiba maadaama aqalka Congress iyo aqalka cadaysan kala fogeyn waxa loo geeyay madaxweyne Trump oo sugayay in uu saxiixo halkaas ayuu qalinka ku duugay ka hor intii uusan saxiixinna waxa uu eeda mas'uuliyadda xirnaashaha dawladda muddada 43 maalmood oo dusha ka saaray xisbiga dimuqraadiga waxa uu u mahad celiyay xubnaha Republicaanka ee labada aqal iyo waliba 8 xubnood oo dimuqraadiga ee aqalka sanadka ku raacay xubnaha Republicaanka ee sharcigaasi 60 cod uu ku meel maro waxana uu ugu baaqay xubnaha sanadka in meesha laga saaro sharciga filibusterka oo u ogolaanaya xisbiga aqlabiyadda iska leh in majority yar ay ku meel mariyaan oo simple majority oo 51 coda sharciyada qaar muhiimka sharciyada hadda miisaaniyadda oo kale waxa qasab ah xisbiga aqlabiyadda leh hadii uusan 60 cod haysan inuu taageero ka helo xisbiga kale ee aqlabiyadda yar ee aqalka sanadka iska leh sidaas darteed ayaa 60 cod loogu baahnaa dimuqraadiyiintana ay u diidanayeen marka waxa uu leeyahay 2 bilood iyo bar kadib hadana bartan ayaan soo istaagi doonaa oo waxa la doonayaa in miisaaniyad maadaama miisaaniyadda dawladdu ilaa iyo bisha 9 ee September sanadka 2026 bisha 9 sodonkeeda ay ku egtahay waxa loo baahnaan doonaa 9 bilood oo kale miisaaniyadda dawladdu ay ku sii shaqeyso marka waa kan markii aqalka wakiiladu sharciga ay meel mariyeen miisaaniyadda dawladdu ay ku sii shaqeynayso oo lagu dhawaaqayay iyo madaxweyne Trump markii uu saxiixayay bal ila daawada On this vote, the yeas are 222, the nays are 209. The bill is passed. The motion is adopted.
Without objection, the motion to reconsider is laid on the table. So with all of that, I just want to tell you the country has never been in better shape. We went through this short-term disaster with the Democrats because they thought it would be good politically. And it's an honor now to sign this incredible bill and get our country working again. Thank you. shalay aqalka wakiilada markii kalfadhigooda ay soo xaadireen waxaa fursad heshay xildhibaanad Adalita Gurihalba oo doorasho qaasa oo ka dhacday degmada 7 ee gobolka Arizona 23 bishii 9 ee September lagu soo doortay 53 maalmood oo aqalka wakiilada aysan wax kulana yeelan waxa ay sugaysay in la dhaariyo xitaa afayeenka aqalka wakiilada dacwad ayay ka gudbisay marka shalay ayay fursad u heshay markii Congress-ka uu furmay in la dhaariyo waxana dhaariya afayeenka aqalka wakiilada Mike Johnson hadalkeedii ugu horeeyay oo ay jeedisay kadib markii la dhaariyo xubnaha aqalka wakiilada ay ka hor jeedisayna waxa ay ku sheegtay in codkeeda ay ku dareyso 217 xubnood oo ka tirsan aqalka wakiilada kuwaasi oo saxiixay mooshin lagu soo bandhigayo Epstein Files ninkii sanadkii 2019 ka xabsi ku yaala New York isku dhex dilay isla markaana gabdhaha da'da yar ka ganacsan jiray oo madaxda dadka taajiriinta iyo kuwa madaxda ah ka kiibin jiray marka waxa ay sheegtay in ay diyaar u tahay in codkeeda ay ku beeriso mooshinkaasi cadaaladana waxa ay tiri maalin kale lama sii sugi karo marka hadda maadaama miisaaniyadii dawladda laga soo jeestay hadda waxa lagu jeestay marka soo bandhigista Epstein Files xubnaha Republicana marka ayaa ku jira in saxiixan mooshinka oo in lagu soo bandhigo Epstein Files Trump iyo waliba aqalka cadna waxa ay doonayaan in aan la soo bandhigin arintan markii hadalkeeda ay jeedinaysay Adalita Gurihalba oo kursigan ka bedeshay aabaheed Rahul Gurihalba oo bishii Maaj 3 ee sanadkan geeriyooday isagoo 77 jir ah ilaa iyo 2003 kursiga degmada 7 ee gobolka Arizona soo metelayay ayaa waxa ay sheegtay in ay saxiixayso mooshinkaasi cadaaladna ay u raadinayso dhibanayaashii uu jirkooda ka ganacsan jiray ninkii ahaa Jeffrey Epstein iyadoo arrimahaasi ka hadlaysayna waxay tiri That is why I will sign the discharge petition right now to release the Epstein files. Justice cannot wait another day. marka Jeffrey Epstein arrintiisa shalay gudiga la xisaabtanka ee aqalka wakiilada xubnaha dimuqraadiyiinta ku jira waxay soo bandhigeen email isku direen ninkii Jeffrey Epstein ahaa iyo haweeneyda la yiraahdo Ghislaine Maxwell oo hadda xabsi 20 sano ah gobolka Texas ku qaadanaysa ay isweydaarsadeen magaca Donald Trump madaxweynaha hadda xilka haya ayaana emailadaasi dhowr mar ka soo muuqanaya hadda emailkan kale oo bishii Abriil ee sanadkii 2011 oo Jeffrey Epstein uu u diray Ghislaine Maxwell waxa ka muuqanaysa in uu leeyahay eyga kaliya oo aan wali qaylin waa Donald Trump marka waxa uu leeyahay qofka kaliya oo aan wali hadlin oo afkiisa uu xiran yahay waa Trump maxaa yeelay qofka magaceeda waa la qariyay waxa uu leeyahay qof dumar ah ayaa waxa uu la joogay gurigeyga muddo saacadaha marka arinta meeshaas waxa ka muuqanaya in Trump uu kamid ahaa dadka gabdhahaasi laga iibinayay walow Trump arintaasi uu inkirayo uu leeyahay ninkaasi 2004 ayaan kala tagnay markii qasriga Mar-a-Lago dad ka shaqeynay oo gabdhahan arkay in uu wadanayo marka xilligaasi ayaan isku dhacno muddo 10 sano iyo ka badan saaxiib ma aanan ahayn emailada kale waxa sidoo kale ka muuqanaya in uu Trump lagu leeyahay ay leeyihiin waxaan ognahay Trump sidoo uu wasaq u yahay marka waxa muuqanaysa in Trump arintan uu wax ka ogaa oo faran laga hayay isla markaana rakaato ama blackmail ahaan lagu haystay aqalka cad afayeenka aqalka cadna haweeneyda la yiraahdo Caroline Levitt shirkeeda jaraa'idlaha oo shalay qabatay waxay tiri emailadaasi ma muujinayaan in uu wax dambi ah u leeyahay madaxweyne Trump marka aqalka cad waxa ay ku dadaalayaan hadda sida inta kale ee Epstein Files-ka ee la hayo Congress-ku aysan u soo bandhigin oo shacabku aysan u ogaanin waxa jirta shalay aqalka cad in loogu yeeray haweeneyda la yiraahdo Lauren Boebert oo Republican oo laga soo doorto Colorado waxaana la geeyay qolka situation room-ka muddo saacadaha waxa la kulmayay wasiirka cadaaladda Pam Bondi iyo taliyaha FBI-da Kash Patel waxa laga dhaadhicinayay waxay ka mid tahay 218 xubnood oo saxiixay mooshinka Epstein Files lagu soo bandhigayo marka waxa la dhahayay
codkaada ama saxiixaada dib ula laabo ilaa ay hadda weli ma aysan la laabanin laakiin aqalka cad waxay isku dayayaan in qaar ka mid ah xubnaha Republicaanka ay ka dhaadhiciyaan in saxiixaasi mooshinkaasi ay saxiixooda ay dib ula laabtaan marka waxaana xalay markii sharcigii miisaaniyadda dowladda la meel mariyay afayeenka aqalka wakiilada Mark Johnson uu sheegay maadaama hadda mooshin ay saxiixeen 218 xubnood oo ka tirsan aqalka wakiilada waxaa la soo hordhigi doonaa mooshinkaasi aqalka wakiilada toddobaadka soo socda marka haddii la ansaxiyo sanadka ayuu u gudbayaa sanadka aqlabiyadiisana Republicaanka ayaa leh marka ma laga yaabaa in xubno ka tirsan aqalka sanadka ay dimuqraadiyiinta ay ku raacaan in Epstein files shacabka loo soo bandhigo aqalka cad ee Trump waxay diidayaan in la soo bandhigo maadaama magaca Trump hadda emailladii shalay la soo bandhigay uu dhowr jeer ka soo muuqday oo la og yahay in isaga iyo ninkaasi ay saaxiibo ahaayeen oo ay in muddo ah wada socdeen Trump marka bartiisa Truth Socialka qoraaladan ayuu ku soo qoray oo uu leeyahay dimuqraadiyiintu hadda waxay isku dayayaan in dadka u weeciyaan dhinaca Jeffrey Epstein arrimahaasi oo been abuura maadaama hadda shutdownkii dowladda laga baxay oo 1.5 trilyan ay muddadaasi 43 maalmood oo dowladda Mareykanku ay qasaartay waxay dimuqraadiyiintu hadda isku dayayaan in Jeffrey Epstein ay u isticmaalaan in dadka fikirkooda hadda ay u weeciyaan isla markaana maadaama dowladda xiritaankeedii uu meesha ka baxay marka waxa uu leeyahay maadaama iyagu dowladda ay xireen inkastoo shacabka Mareykanku ay Republicaanka ku eedeynayeen xirnaashaha dowladda maadaama labada aqal iyo aqalka cadba ay Republicaanku hadda gacanta ku hayaan laakiin Trump isagu waxa uu ku eedeynayaa in xisbiga dimuqraadiga ay mas'uul ka ahaayeen marka waxa uu leeyahay hadda dhinaca marka waxay doonayaan dadka fikirkooda inay u weeciyaan ama attentionkooda ama dareenkooda ay u weeciyaan dhinaca Jeffrey Epstein fileska oo ah files aan jirin oo been abuura walow ay jiraan oo hadda dokumentiyo aad u fara badan la soo bandhigay laakiin kuwa fara badan ayaa qarsan oo la doonaya shacabku inay ogaadaan aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkeen cilmi waro idin la sida iyo nabadgelyo